ra-iisul wasaaraha dalka ayaa ka tacsiyadeeyay geerida ku timid Allah u naxariiste xildhibaan hore Daahir Xasan Guutaale. wariyana Maxamed Salaad ayaa warkan inoo faahfaahinaya. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa tacsiyo u diray qoyska ehelkii iyo shacabka Soomaaliyeed uu ka geeriyooday Allah u naxariiste xildhibaan hore Daahir Xasan Guutaale. marxuum Daahir Xasan Guutaale oo 50 sano muddo ku dhow soo shaqeeyay dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu hore u soo qabtay xilal kala duwan isagoo 2 jeer soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya sanadihii 2000 ilaa 2004 iyo 2008 ilaa 2012. ra-iisul wasaaraha ayaa ku tilmaamay marxuum Daahir tiir muhiim ah oo ka baxay dowladnimada Soomaaliya kaas oo maskax iyo talooyin wanaagsan ku soo kordhiyay nidaamka dowladnimada Soomaaliya. mudane Xamse waxa uu si gaar ah ugu tacsiyay wiilkiisa oo ah la taliyaha amniga ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Kamaal Guutaale isagoo Allah ugu baryay marxuumka inuu ka waraabiyo jannatu firdawsa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo ehelkii uu ka baxay samir iyo iimaan Allah ka siiyo.